imaamyada tukiya salaada taraawiixda iyo taajudka ee masaajidka xarameynka ee bisha barakaysan ee Ramadaan inta lagu guda jiro sanadan 1442 ayaa si rasmi ah loo shaaciyay sida lagu shaaciyay warqad qoraal ah oo ka soo baxday xafiiska xarameynka al-Sharifayn waxa lagu sheegay in imaamyada bisha barakaysan ee Ramadaanta inta lagu guda jiro masaajidka xarameynka loo xushay 6 imaam oo kamid ah culimada caanka ku ah akhrinta Qur'aanka Kariimka qowlka Eebe culimadaasi ayaana kala ah kow Sheikh Cabdiraxmaan Al-Sudaysi اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله Sheikh Cabdiraxmaan Al-Sudaysi sanadii 1961 ayuu ku dhashay magaalada Qaasim ee dalka Sacuudi Carabiya magaca sheekha oo dhameystiran waa Cabdiraxmaan Cabdul Casiis Al-Sudaysi Al-Najdi Sacuudi Carabiya iyo dunida muslimkaba oo caan kaga yahay akhrinta Qur'aanka Kariimka kaasi oo codkiisa si aad ah loo jeclaysto qarinimada waxa uu dheer waa imaamka koobaad ahna qadiibka masjidka xaramka ee magaalada Makka sidoo kaleetana waa madaxa guud ee arrimaha labada masjid ee barakaysan ee Makka iyo sidoo kaleeto masjidka ku yaala magaalada Madiina Sheikh Sudaysi wuxuu Quraanka u xifdiyay isagoo da'diisu ay tahay 12 jir waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu ku bartay dugsiga hoose ee Al-Muthanna isaga oo dugsigaasi ka baxay guugii 1979 kadibna sanadii 1983 waxa uu ku biiray jaamacad la oran jiray Riyadh University oo hadda loo bixiyay King Saud University waxaana ka qaatay shahaadada koobaad iyo labaad iyo sidoo kaleeto shahaadada PhD-da waxaana sanadii 1955 uu ka qaatay jaamacadda Qura Sheikh Saud Al-Shuraim bishii January sanadii 1966 waxa uu ku dhashay magaalada Riyadh magaca Saud Al-Shuraim waa magac caan ah marka la fiiriyo cilmiga diineed ee uu leeyahay iyo sida quruxda badan ee codkiisa loo jeclaysto marka uu akhrinayo Qur'aanka Kariimka ah ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من shahaadada sarfaadka doctorka ayuu ka qaatay jaamacadda Qura ee ku taala magaalada Makka Sheikh Surayn wuxuu imaam iyo sidoo kale qadiib uu ka yahay masjidka xaramka ee magaalada Makka waxaana kamid yahay sanadan 2022 mashaayikhda loo xushay in ay salaadaha taraawiixda iyo sidoo kaleeto taajudkaba ay ka dujiyaan gudaha masjidka barakaysan ee xarameynka sheekha saddexaad Sheikh Cabdullaahi Awad Al-Juhayn waxa uu ku dhashay magaalada Makka xifdkiisii Quraankana waxa uu ka bartay imaamkii hore ee masjidka Nabiga Sheikh Maxamed Ayub Sheikh Juhayn wuxuu Quraanka u xifdiyay markii ay da'diisu ay ahayd 16 sano jir isaga oo tartanka Quraanka Kariimka ee xilligaasi kaalinta koobaad ka galay أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى shahaadada koobaad ee cilmiga Quraanka waxa uu ka qaatay jaamacadda Islaamiga ah ee Madiina shahaadada labaad iyo tan saddexaad ee isla cilmiga Quraanka waxa uu ka qaatay jaamacadda Qura ee ku taala gudaha magaalada barakaysan ee Makka al-Mukarrama shiiqa afraad ee sanadan loo xushay in uu imaam ka noqdo salaadaha taraawiixda iyo sidoo kale taba salaada taajudka ee masaajidka barakaysan ee xarameynka waxa uu yahay Sheikh Maahir Al-Mucaaqili sanadii 1969 waxa ku dhashay magaalada Madiina waxaanu kamid yahay culimada caanka ah ee akhrisa Qur'aanka Kariimka waxa uu sidoo kaleeto sheekhan uu caan ku yahay aqoonta cilmiga xisaabta uu heer sare uu ka gaaray waxa uu macallin uu ka yahay jaamacadda Boqor Cabdalla oo ku taala magaalada Makka صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sanadihii 2006 ilaa iyo sanadii 2007 waxa uu imaam uu ka soo noqday masaajidka Nabiga ee Madiina sanadii 2008 isaga iyo Sheikh Sudaysi waxa salaada taraawiixda ay ka dujiyeen masaajidka xaramka Sheikh Maahir wixii ka dambeeyay 2006 waxa uu kamid noqday imaamyada masjidka xaramka iyadoo imaamnimada uu magacaabay boqortooyada Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan sheekha shanaad ee sanadkan loo xushay inuu tujiyo salaada taraawiixda iyo sidoo kaleeto salaada taajudka
ee masjidka barakaysan ee xarameynka waa Sheekh Bandar Baylillah. Sheekh Bandar bin Cabdilcasiis bin Siraaj bin Cabdilmalik Baylillah sanadii 1975 waxa uu ku dhashay magaalada Makka. waxa uu ka mid yahay culimada Quraanka sida uu u aqriyo aadka loo jecel yahay. يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة. shahaadooyinka koobaad iyo labaad ilaa iyo PhD-da oo cilmiga shariicada islaamka iyo fiqiga ayuu ka qaatay jaamacadda Qura. wuxuuna in muddo ah uu imaam u ka soo ahaa masjidka Al-Amira ee ku yaala xaafadda Al-Aziz ee magaalada Makka. sanadii 2013 wuxuu ka mid noqday imaamyada salaada taraawiixda ee bisha barakaysan ee masaajidka xaramka. 2016 boqorka dalka Sacuudiga Boqor Salmaan ayaa sheekhan u magacaabay in uu imaam ka noqdo dujinta salaada istisqaa ee roobdoonka masjidka xaramka. sheekha ugu dambeeya ee sanadkan loo soo xushay in uu ka dujiyo masaajidka waa Sheekh Yaasir Al-Dosari. الله عليه الجنة ومأواه النار. Sheekh Yaasir Al-Dosari sanadii 1981 ayuu ku dhashay magaalada Riyaad. waxa uu Ilaahay u hibeeyay cod aad u qurux badan oo cid waliba oo dhageysata ay jeclaanayso marka uu ku luqaynayo marka uu akhrinayo Qur'aanka Kariimka qowlka Eebbe. Qur'aanka Kariimka waxa uu xifdiyay isagoo da'diisu ay tahay 15 sano jir. kadibna waxa uu cilmiga shariicada islaamka uu kaga qaran jabiyay jaamacadda islaamiga ah ee Imaam Maxamed bin Sacuud. waqti xaadirkan waxa uu ka mid yahay macallimiinta ugu caansan jaamacadda Boqor Al Sacuud. waxaana cilmiga ka aqriyaa masaajidka Al-Daqli ee ku yaala magaalada Riyaad. waana xogayaha guud ee jaamacadda Amiir Suldaan qaybta ciidamada qalabka sida ee Sacuudiga lagu baro Qur'aanka Kariimka. 60 imaam ayaana loo soo xushay in sanadkan ay tujiyaan salaadaha taraawiixda iyo sidoo kaleeto salaada taajudka inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan oo aynu ku guda jirno 10keedii dhexe.